isku soo noqdo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal kale oo xiiso leh muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa dropshipping waxa la yiraahdo inay tahay xalaal in laga ganacsado iyo inay tahay xaraam waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkan xogta aan ka soo helay internetka baaritaano ayaan sameeyay dabcan culimo badan ayaa ka hadashay culimadaas waxa ay ka dhaheen ayaana ku soo gudbin doonaa ma ahan wax aniga aan fadwoonayo ama aan ku leeyahay waa xalaal ama waa xaraan kaliya wixii laga yiri ayaan kula wadaagaya waana wax ku saabsan shariicada islaamka iyo diinta sida ay ka qabto dropshipping ganacsigeeda haddaba dropshippingku horta waa maxay qofka aan aqoonin dropshippingku waa in qof uu samaystaa goob ganacsi oo online ah tusaale website oo kale website-ki markii aad samaysatidna waxaad ku soo bandhigaysaa product sawiradiisa ama shay sawirkiisa ayaad soo bandhigaysaa shaygaas sawirkiisa markaad soo bandhigtid waxaad ku qoraysaa magaciisa description ayaad u samaynaysaa oo ah waxa uu yahay waxa uu ka kooban yahay kalarka uu yahay iyo astaamihiisa oo idil ayaad ku qoraysaa qiimo go'an ayaadna ku qoraysaa kadibna internetka ayaad ku fasaxaysaa oo website-ki waad publish garaynaysaa oo live ayaad ka dhigaysaa qof jooga adduunka meel ka mid ah ayaa arkaya sawirkii kadibna wuu ka helayaa barragtiga ayuuna kaa soo dalbanaya markuu kaa soo dalbadana lacagtii ayuu ku siinayaa markaad lacagtii aad ka qaadid qofkii customerka ahaa ama macmiilka ahaa ayaad adiga alaabtii waxaad u forward garaynaysaa ama orderkii uu kuu soo diray waxaad u forward garaynaysaa supplier ama third party supplier wax la yiraahdo oo ah qofkii hayay alaabtaas adiga alaabta ma haysid kaliya sawirka ayaad gudbisay qof baa ka helay oo soo dalbaday orderkina waxaad u forward garaynaysaa supplierkii ayaadna ka gadanaysaa adiga alaabta wuxuuna u deliver garaynayaa qofkii customerka ahaa oo supplierkii aad ka iibsatay alaabta ayaad leedahay deliver garee oo alaabta halkaas geey oo qof hebel u geey markii alaabtii qofkii loo geeyey adigana halkaas faa'iido ayaad ka helaysaa oo lacagtii intii aad oga gaday qofkii supplierka ahaa iyo inta qofka uu kaaga gatay adiga faa'iido ayaa u dhaxayso tusaale 50 ayaad ka siisay macmiilkii supplierkii alaabta hayayna waxaad ka siinaysaa 30 ama 20 halkaasna waxaad ka faa'iideysaa lacag sidaas ayayna u shaqaysaa dropshipping haddaba mas'aladan culimo badan ayaa ka hadashay culimada maxay ka yiraahdeen badankooda waxaa jiray xadiid nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay oo uu leeyahay ma iibin kartid wax adiga aadan milkiyadeeda lahayn ama wax aadan haynin markii aad iibinaysid ama marka lagaa gadanayo ama lagaa soo dalbanayo wax aadan haynin ma iibin kartid halka dropshippingkana waxa aad iibinaysa aysan ahayn wax adiga aad haysid waxaa haya qof kale oo ah supplierkii ama third party haddaba halkaas dropshippingka far ayaa ku gadan oo sababtoo ah ma haysid alaabta aad iibinaysid mana lihid adiga oo waxa aadan lahayn waad iibin kartaa laakiin shuruud waxaa looga dhigay in aad haysid marka lagaa soo dalbanayo markuu qofka kaa soo dalbanayana dropshippingka alaabtaas adiga ma haysid ee meel kuuma taalo walba waxaa laga yaabaa xitaa supplierka iibin lahaa xitaa inaadan garanaynin markaas ayada oo aadan xiriir la lahayn oo markaas kadib aad raadinaysid dadka qaarkood supplieradooda waxaa laga yaabaa in xiriir caadi ay la leeyihiin so marka xadiidku wuxuu ahaa wax aadan lahayn ma iibin kartid wax aadan haysanin ma iibin kartid so taas marka la fiiriyo dropshipping waxay ka dhigaysaa xaraan oo kow adiga alaabta ma lihid labo alaabti ma haysid oo meel kuuma taalla marka aad iibinaysid ee qof kale ayaa hayo balse waxaa jiro wax kale oo la yiraahdo bayc al-salamkana wuxuu yahay wax aadan hayn ayaad gadaysaa waxaasna waqti ayaad u geyn doontaa qofkaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa hadda ka horreyn u yimid wuxuuna yiri nabi allow dadku waxay rabaan inay iga iibsadaan wax aanan haynin markaas ayada waana waxaan la yiraahdo bayc al-salam soo marka bayc al-salamka saddex shuruud ayaa lagu xiray shuruudda koobaad waxay tahay shayga aad iibin rabtid waa in si aanan lahayn mugdi aad u sheegtid astaamihiisa aad dhahdid tusaale waxaad iibinaysaa taleefankan waa taleefan iPhone 13 Pro Max ah kalarkiisa noocaas uu yahay GB-giisa intaas ah memory-giisa intaan ah aad sheegtid astaamihiisa oo dhan iyo wax walba oo faahfaahin oo ku saabsan productgaas ama shayga aad iibin rabtid ama laga iibsan rabo isla markaana aadan wax mugdi aadan gelinin oo qiyaamo aysan ku jirin labo waa in qofka kaa gadanaya lacagta uu horumaris kuu siiyo waa shuruud midda saddexaad oo ah in waqti cayiman aad u sheegtid aad dhahdid waqtigaas ayaan alaabtan kuu keenaya tusaale taariikh 23 bisha afaraad 2025 ayaan kuu keenaya alaabtaada saddexdaas shuruud ayaa ku xiran sidoo kale waxaa laga rabaa ama bayc al-salamka qofka waxa iibinaya ama supplierka waa in la yaqaana marka koobaad inta aadan contractiga la gelin oo supplierki waa adiga oo markaas ayada ah adduunka hadda wuu hormaray markaas ayada ah waxa laga hadlayay wuxuu ahaa qofkaas asaga ah ayaa alaabta iibinaya oo supplierka waa asaga markaasna way caddahay supplierka wax laga iibsanayo balse adduunka hadda wuu hormaray oo supplier kale ayaa la isticmaalayaa oo qofkii asaga wuxuusan hayn ayuu rabaa inuu gado oo qof kale ayaa gadaya waxa la diidan yahayna waa waxaas marka shuruudana waxay tahay supplierka waa inuu cad yahay ama la yaqaana qofka uu yahay oo adiga inaad tahay supplierka ayaa la rabaa alaabtan qofka adiga ayaa contractiga la gashay
waxaad u sheegaysaa xilliga aad u keenaysid lacagta iyo horumar isku siinaya shayga tilmaantiisa saxda ayaad siinaysaa adigi ayaana geynaya alaabtii oo siinaya oo adiga ayaa deliver gareynaya hadduu qof kale uu deliver gareeyo bayc al-salam ma noqonaysa ayaa leeyahay waa in adiga aad deliver gareysaa alaabta haddaba haddii aan isku fiirino marka bayc al-salamka iyo dropshippingka siday isku waafaqayaan ama ma isleeyihiin oo yacni dropshippingka ma soo hoosgelaysaa bayc al-salamka haddaba aan fiirino bayc al-salamka waxaa la yidhi waa in supplierka la yaqaanaa ama la og yahay qofka uu yahay inta aan contractiga aadan la gelin ama shayga aan lagaa iibsan soo marka dropshippingka supplierka waxaa dhacda mararka qaar in aadan garanaynin oo uusan kugu caddayn qofka supplierka ah haddaba taas aan ka gudubno midda kale oo halka ugu adag aan laga gudbi karin ah in alaabti adiga aad deliver garaysid ayaa lagaaga baahan yahay si bayc al-salam u noqoto haddaba dropshippingka alaabta waxaa deliver gareeya third party-gaasna waa qof kale oo saddexaad marka hadday mar uu qof saddexaad uu soo gala meesha bayc al-salam u noqonayso oo alaabti qof saddexaad uu deliver gareeyo alaabti waxaa lagaa rabaa in adiga aad deliver garaysid haddii supplierka adiga uu kuu keeno alaabta storekaaga ay taallo qofka uu kaa soo dalbado aad adiga deliver garaysid waa caadi laakiin marka lagaa soo dalbado hadduu qof kale uu deliver gareeyo alaabti oo third party ah ama qof saddexaada uu alaabtii u geeya macmiilkii ma noqonaysa bayc al-salam halkaas ayayna uusan ku noqonayn dropshippingka bayc al-salam laftirka saas awgeed waxyaabahan soo sheegnay oo dhan waxay ka dhigayaan dropshippingka inka ganacsigiisa uusan ahayn mid xalaal ah allahu aclam culummada badankeedana sidaas ayay yidhaahdeen oo ay oga hadleen haddaba intii aad ka shaqaysan lahayd wax muran uu ku jiro ama wax lagu yiri waaba xaaraan oo si cad lagugu sheegay waxa ka fiican inaad raadisid waddo kale oo xalaal ah oo aad ku shaqaysan kartid waddooyin badan ayaa jiro oo xalaal ah oo online-ka aad uga shaqaysan kartid haddaad baaritaan samaysid waad heli doontaa haddaad u baahan tahay inaan kasoo hadlo waxyaabaha xalaasha ah ee ganacsiyada xalaalka ah ee online-ka ee laga shaqaysan karo igula wada commentiga waa ku maasanta daawashada muuqaalka haddii halkan ay soo gaartay channelka subscribe saaro page-ka aan Facebook ku leeyahayna follow dheh asxaabtaadana la share garee si ay uga waantoobaan hadday rabaan inay ka shaqaystaan dropshippingka ama ay ku haminayaan inay ka shaqaystaan maadaama uu yahay ganacsi aan xalaal ahayn ama xaaraam ah haddaba intaan ku kulmayna muuqaalka midka xiga waxaan kaga tegayaa nabaadiin